بسم الله magacaygu waa Xaawa Cabdi Xasan Xaawa degan maanta waxaan soo booqday isbitaalka Dalmar Al-Nuur oo taqaaniin indhaha aad ugu xanuunsanaa muddo ma sha Allah dhakhtarka indhaha la kulmay Dalmar kaligiisna ma fariisto dhaqaatiir badan fariisto haday ahaan lahayn ilmaha haday ahaan lahayn haweenka haday ahaan lahayd hada dhaqaatiir badan oo dhinac kasta waa ugu hambalyeynayna dhaqaatiirta quruxda badan oo loo baahnaa dalka u baahnaa ay keeneen waxa ku xirnaa muddo aad u dheer waa mahadsantihiin aan leeyahay sida quruxda badan noogu adeegtaan mar walba ilaaha u naxariistay abwaan sangub oo Mareykanka inta laga soo quustay dhaqaatiirta inaan maqal karno indhaha ma taaba karno wallahi meeshaan lagu qalay Dalmar qalay oo sangub oo ogeydeen bulshada wuxuu u ahaa qof muddo soo shaqeeyay qof ma sha Allah indhihiisa ku soo shaqeeyay wallahi Mareykanka waa loogu soo diiriyay waxaan waxba kaama qaban karno indhahan inta loogu qalay marka waxaan leeyahay qof walba xanuunsan haduu ilmo yar yahay haduu waalid qof weyn yahay meeshaas hala soo aado ama hadda xarun cusub soo guurin oo gur weyna iyadoo qayb kale oo magaalada dhinaceeda kalena waa ku xirnaay wallahi horta muddadaas iyo maanta farqi weyn u dhaxeeyo maanta meesha way weyn tahay gur weyn waaye dhaqaatiir badan joogto kalkaaliyaal badan joogo ma sha Allah waxa lagu adeegay si qurux badan dadka meesha joogo oo bukaanka waxa la dhaqmaa si qurux badan waa loo qaabilayay waxaan ku arkay horta intaanan is arkin oo is fahmin dhaqaatiirta isku sheegin dad badan oo waayeel oo xanuunsan oo dhalinyarada kalkaaliyaasha ay caawinayaan iyo ugu mahad celinayna dhaqtar kasta isbitaal kastana waxa ka rajaynayna sidaas oo kale dadka ugu damqadaan markay waa dadkoodii maanta markaan soo arko meel aniga wax la igu soo qabtay oo si nadiif inta wax la igu soo qabtay aniga ku soo qancay anoo bukaan ah waa qasab ina qof walba oo bulshada u gudbiyo barkay afki bulshada ugu hadli lahaa oo wax u gudbin lahaa waa anaga markaan soo arko meel qof lagu dhibaateynayo oo dadka lagu dhibaateynayo waa waajib inaan gudbino oo dhahno meeshaas bulshada iska jiraan meesha aan aragnay in wax fiican dhaqaatiir fiican ay joogto oo dadka si fiican ula macaamilayo iyadana waajib inaan u sheegno dhahno bulshada Soomaaliyeed meeshaas ha lagu xirnaado waa meel loo danay marka aad u mahadsantiin soo dhawaada idin leenahay Dalmar Specialty and Teaching Hospital. Higsigeenu waa caafimaadkaaga.